Assalaamu calaykum. Mowduuceena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 10 dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Intaanu bilaabin muuqaalka ka hor, waxaanu ku xasuusinaynaa in aad subscribe inoo saarto channelka, gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan halkaan soo gelino. Mahadsanid. Aanu gudagalno muuqaalka. Waddanka dunida ugu dhaqaalaha badan waa Mareykanka oo kaalinta koowaad ku jira tan iyo 1920-kii. Waxa uu dhaqaalaha dunida hormuud u yahay muddo ku dhow 100 sano. Dhaqaalihiisu waxa uu kor u dhaafayaa 21 trilyan, waana dalka labaad ee alaabta ugu badan dibadda kala soo dega. Kaalinta labaad waxaa ku jira dalka Shiinaha oo sameynaya koboc dhaqaale oo ballaaran, waana dalka la rajaynayo inuu 5 sano ama 10 sano ee soo aadan uu kala wareego Mareykanka hoggaanka dhaqaalaha dunida. Shiinuhu dhaqaale ahaan wuxuu hadda marayaa 14 trilyan oo dollar. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira Jabaan oo ah dal aad u warshado badan oo wax soo saarkiisu meel walba gaaray. Jabaan wax macdan ah ma leh, balse waxa ay hodan ku tahay wax soo saarka warshadaha. Dhaqaalaha dalku waa 5 trilyan oo dollar. Kaalinta afaraad waxaa ku jira waddanka ugu hodansan qaaradda Yurub ahna hormuudka reer Yurub ee Jarmal. Dhaqaalaha Jarmalku waa in dhan 4 trilyan oo dollar, waana dal aad u wax soo saar badan kuna hormaray tiknoolajiyadda iyo gaadiidka. Waana qaran bixiyaha ugu weyn qaaradda Yurub, waana hoggaanka reer Yurub. Kaalinta shanaad waxaa ku jira dalka India oo soo gashay sanadkii aan soo dhaafnay ee 2019-kii. Sanadkii aanu soo dhaafnay ee 2019-kii, dhaqaalaha dalku waxa uu hadda marayaa 2.9 trilyan oo dollar. Kaalinta lixaad waxaa ku jira UK oo lagala baxay booska shanaad sanadkii aan soo dhaafnay ee 2019-kii, waxaana kala baxay India. UK oo ka mid ahayd in badan dalalka dunida ugu dhaqaalaha badan, waxay hadda dhaqaale ahaan haysataa 2.8 trilyan oo dollar. Kaalinta toddobaad waxaa ku jira Faransiiska oo sameynaya koboc dhaqaale oo gaabis ah. Waxa uu hadda marayaa dhaqaale ahaan 2.7 trilyan oo dollar. Kaalinta siddeedaad waxaa ku jira dalka Talyaaniga oo ka mid ah 4 dal ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub, kana mid ah 7 dal ee nidaamka warshadaha ku hormaray. Dalkan dhaca xeebta koonfureed ee Yurub ayaa haysta dhaqaale dhan 2.2 trilyan oo dollar. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jira waddanka Brazil ahna awoodda Koonfurta Ameerika. Dalka ugu baaxadda weyn Latin America ayaa haysta dhaqaale dhan 1.9 trilyan oo dollar. Kaalinta tobanaad waxaa ku jira dalka labaad ee dunida ugu baaxadda weyn, kaasoo ah Canada. Dalkan dhaca waqooyiga Ameerika ayaa ah dal dad iyo dhaqaale ahaanba isku dheelitiran, waana dal hodan ku ah wax soo saarka warshadaha, waana xubin ka mid ah 7 dal ee warshadaha ku hormaray. Dhaqaale ahaan wuxuu haystaa 1.8 trilyan oo dollar. Waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaalada aanu halkaan soo gelino. Mahadsanid.